السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن داوديال meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warkeena galabnimo qodobada warkeena ugu doorona waxa kamid ah ururka TPLF oo ku soo daadgureynaya ciidamadii ugu badnaa abidiyado dagaaladoodina ay ka sii socdaan halkoodii maleeshiyaadka canfarta oo weerar gaadma ku soo qaaday galbeedka gobolka City gaar ahaan deegaanka Candufo ururka xoreynta Oromia oo sheegay in ay la wareegeen deegaamo ka hoos yimaada kilalka Oromia iyagoo sheegay inay qabsadeen deegaamo kamid ah gobolka Borana qaybo kamid ah kilalka Oromia oo laga jaray khadka internetka iyadoo halkaasi la sheegay in ay joogeen ururka OLA sidoo kale daawadayaal waxaad warkeena kaga bogan doontaan xogo kale oo xasaasi ah oo idinka hayna dalka Itoobiya inteena u guda galin warkeena waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii aad ku cusubtahay channelkeena subscribe saar like iyo share tan raaci waxaad sidoo kale follow naga dhihi kartaa page-ka aan ku leenahay Facebook-ga mahadsanidin aan ku bilaabo warkeena xaaladaha dalka Itoobiya iyo dagaalada ka socda dalka Itoobiya waxa alaaba inoo haya oo isha ku haya Maxamed Wacane ku soo dhawow ururka TPLF iyo dawladda federaalka waayihii ugu dambeysay dagaalo culus ayaa ka socday waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Axmaarada deegaamadii la isku horfadhiyay waxa joogay ciidamo labada dhinac iska soo horjeeda oo mar walba dagaal u diyaarsan maxay tahay ururka TPLF ciidamadan cusub ee ku soo daadgureynaysa gobolka aad baad u mahadsantahay ciidamadan ururka TPLF ay sheegeen inay ku soo daabuleen meesha ayadoo la arkayay ciidamo aad u fara badan oo ay ku soo daabulayaan dhulka Axmaarada ururka TPLF Cabdullaahi dagaaladii ugu dambeeyay 48 saac ugu dambeysay dawladda dhinaceeda waxay sheegtay in ururka TPLF si daran loogu xasuuqay oo meeshaas ciidamo aad u fara badan looga laayay ururka TPLF balse maanta ururka TPLF waxay soo bandhigeen awood weyn oo ay ciidamo aad u fara badan ay ku soo daabulayaan dhamaanba dhulka Axmaarada iyo deegaamadan dagaalka ku dhaxmariyay Cabdullaahi ururka TPLF say horaantii bishanba sheegeenba waxay rabaan inay qabsadaan labadan magaalo ee istiraatiijiga ah labadan magaalo Cabdullaahi waa magaalada Dizay iyo sidoo kale to magaalada Gondar gobolkan Wolo waa gobol istiraatiiji ah saan wararkeena hore baan ku tabinay ururka TPLF waxaad moodaa in ay rabaan dhamaanba gobolkan Wolo inay gacanta ku dhigaan ayagoo meeshaasi rabo inay ka helaan xogagan OLA ee ka dagaalamayo dhulka Oromada in ay ayaga ay isku imaadaan saadarteedna ay khalkhal galiyaan ciidamada ku sugan dhulka Axmaarada ururka TPLF marka hore waxa ka joogay halkaas ciidamo oo dagaalo ka waday soo lama dhihi karo dagaaladii hore ku jabeen marka ciidamadan waa kordhis Cabdullaahi laba dhinac labada waa loo sababeyn karaa waa la dhihi karaa ciidamadii waa lagu jabiyay oo sida dawladda ay sheegtay waa lagu jabiyay waa la dhihi karaa tukalna waa loo sababeyn karaa ciidamadan meesha joogo way daaleen dagaalo badan ayay galeen saddex dagaal oo aad u waaweyn oo midkiiba bil qaatay ayay ciidamadan ku jireen marka ciidamadan way daaleen waa la dhihi karaa ciidamadan dib baa loo yar qaaday kuwan kale ee carcarta qabana hore waa la keeni karaa waa la dhihi karaa marka labaduba laakiin ururka TPLF say sheegeen waxay rabaan in ay ciidamo badan keenaan sifa ay dhulka canfarta oo ay ka soo baxeen oo ciidamo badan ka joogeen oo ayagana ay rabaan inay dagaalo ay ku qaadaan ciidamada halka ku sugan dhinaca canfarta Cabdullaahi ururkan hadii ay meeshan bas joogan ayaga laftirkooda gadaal waa looga iman karaa oo dhinaca canfarta inta looga imaado eber waa laga saari karaa marka waa istiraatiiji ahaan oo ay diyaarinayeen bilahan oo dhanba iyo maalmihii dambe ay dagaalka ay joojiyeenba marka waa istiraatiiji waa dhihi karaa ciidamadan ay keenayaan meelo badan ay rabaan inay ku fidiyaan Cabdullaahi ciidamadan ururkan xoreynta Oromia ciidamadooda meelo badan ay qabsanayaan maalin walba oo meelo badan ay ku fidayaan oo ay qabsanayaan marka waa la dhihi karaa tanna ciidamadan waxay rabaan ayagoo shacab oo dhar shacab qabo inay geliyaan dhulka Oromia oo ay saa u awoodsiiyaan ciidamada halka dagaalka wada maalin dhaweyto dawladdu waxay soo bandhigtay dad dhar shacab qabo aad u fara badan iyo risaas iyo hubkii ugu dambeeyay casri ah ayaa lagu qabtay magaalada Dizay agaarkeeda marka ciidamadu maalin walba waxay soo bandhigaan hub aad u fara badan oo dad shacab ay wateen ururkan TPLF waxay ciyaarayaan khibrado aad u fara badan oo ay dhaxleen intii ay wadanka haysteen iyo sida waxay fahmeen nooc walba oo sir oo ciidanka ama wax loogu soo gudbiyo ama magaalo loogu duulo nimankan waa niman aad u maskax badan sida ay dagaalka ku wadaana nimankan ma aha niman laga reyn karo
oo ma muuqda cabdullaahi ururka TPLF waa qowmiyadda Tigreega ayay ka soo fircameen waana urur waxa weeye qowmiyadda Tigreeg markii tiro ahaan la eego dalka Ethiopia waa qowmiyadaha ugu yar bay ka mid yihiin yaa awood siinaya ciidamada inta dhan ee gobolka Tigreena ay ku haystaan ee litiri ay kula dagaalamayaan dawladdan ay kula dagaalaan xagee ka keeneen cabdullaahi ururka TPLF saad u ogtayba iyo TPLF ba waddanka waxay haysteen in ka badan 30 sano waa niman aad u khibro badan waa nimankii ka talinaya geeska Afrika dhanba ayaga jawaasiistoodii iyo meel walba u joogay waxaa jirta cabdullaahi xataa dad ka mid ah shacabka axmaarada laftirkooda iyo oromada ayaa u kala dhumanaya ururka TPLF oo maalin walba hubka usoo gudbinayo oo siraha iyo xogaha siinayo marka ciidamadii xataa dowladda federaalka ah ee meesha joogay saraakiisha ugu waaweyn badankoodu way xidhan yihiin waxaana looga shikiyay inay gacan siinayaan maxamed oo shacabka Oromiya say u siinayaan gacan soo ayagii la xasuuqay ee ururka TPLF uu xasuuqay 500 ee qof buuraha hoostooda lagu laayay diyaaradaha lagu rusheynayay maaha say ku dhacday inay shacabka ay taageeraan halkaasi bayaami cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal aad u muhiim u ah oo u baahan in la faahfaahiyo dadkana waxa ay ka aaminsan yihiin si fiican loogu turjumo cabdullaahi waan ognahay ururka TPLF 30 sano waddanka way ka arriminayaan waa sax ururkan OLA ee Oromiya hadda ururka xoreynta Oromiya in ka badan 40 sano la gumaadayo oo la leenayo waxa leenaysay TPLF waay ay hadda ay sababta max ka dambayso in ay saxiix la galaan iyo heshiis la galaan iyo wada shaqeyn ay la galaan ururkii soo gumaadayay 30 sano iyo 40 sano ka badan maxay tahay marka cabdullaahi siyaasadda hadba dhinaca ay jirto 500 ee dhimatay lama eegaye waxaa la eegayaa 100 sano soo socoto qofkii aad heshiis la saxiixan lahayd wax la socon lahayd marka taas ayaa cabdullaahi yaa 500 la laayay yaa lagu duugaya okay ururka TPLF waan garanay ururka xoreynta Oromiya xagee u dambeysay cabdullaahi ururka xoreynta Oromiya maanta sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaalaho halka ku sugan waxay sheegayaan in ururka OLA ay xawaare zaid ku socdaan maalmihii ugu dambeysay dhanba deegaamo aad u fara weyn ay qabsanayeen kolba deegaamo ay qabsadeen oo halkaas ay ka wadaan wacyigelin ay soo dhigayeen maantana cabdullaahi sidii leeg ayay sameeyeen waxayna dhaheen waxaan qabsanay dhul ka tirsan gobolka Borana marka nimankan xawaare zaid ay ayagana ku socdaan meel laga saaciideeyo wax laga siinayana dawladdu xataa way ku wareersantahay dawladdu ma ka hadashay deegaamada ay qabsadeen iyo ururkan cabdullaahi lama ogaan karo dawladdu kamayn hadlin lamana ogaan karo khasaaraha dhabta ee meeshaasi ka dhacay iyo meelaha ay qabsadeen xogo faahfaahsan lagama heli karo sababtoo ah shalayto ayay dawladdu jartay khadkii meeshaas deegaamada hadda ay qabsatay iyo dhammaanba dhul ka tirsan gobolka Oromada marka xogo rasmi ah oo faahfaahsan lagama heli karo iyagu wax cadayna ma soo dhigeen ma soo saareen cadayn ma ka soo saareen deegaamada ay qabsadeen cabdullaahi deegaamada ay qabsadeen cadayn way soo bandhigeen waana deegaamo ay qabsadeen oo deegaamadii maalin horeba ay qabsadeen iyo nawaaxigooda ku dhawaayo oo dhan bay qabsadeen cabdullaahi ururkan OLA waxay u muuqataa inay rabaan dhamaanba dhulka Oromada maahane gobolkan Borana ayay xuduudoodii oo dhanba isku geeyeen oo ay rabaan inay qabsadaan dhanka kale waxaa na soo gaadhay oo ila xogagaala ay noo sheegeen maleeshiyaadka gobolka Canfarta inay weerar gaadma ku soo qaadeen deegaamada Candhuufo ee galbeedka gobolka City ee dawlad deegaanka Soomaalida halkaasina waxaan ku ogeyn ciidamada New Police say wax u dhaceen ciidamadii New Police xagee ka dhaceen cabdullaahi halkaan ka saxay ciidamada New Police waxay joogaan magaalada Garbaciise iyo agaarkeeda Candhuufo ma joogaan marka Candhuufo dad shacab ayaa ku sugnaa dadka shacabka ayayna maleeshiyaadkan ay mar walba beegsadaan cabdullaahi waan ogeyn dagaaladii ugu dambeeyay ee Garbaciise agaarkeeda ka dhacay Canfarta aad baa loogu jabiyay marka waxay bilaabeen weeraro gaadma ah oo lagu gaadayaan ama ku gumaadayaan dadka shacabka ee meesha ku sugan marka maleeshiyaad caadaystay dhiigga Soomaalida waana mar walba waxay laayaan dadka xoolo dhaqatada iyo dadka ceelasha deegaanka ku agyaalo ayay gaadaan oo laayaan marka arintaasi waa arin mudan inay dawlad deegaanka ay si fiican isha ugu hayso cabdullaahi shacabka ku sugan galbeedka gobolka City waxay u baahan yihiin gurmad joogto ah oo mar walba oo ururkaasi iyo deegaamada xuduudda ku weeran inay ciidamo aad u fara badan intii la geeyo meeshaas si fiican looga dhiciyo cadawga maalin walba gumaadayo shacabka galbeedka gobolka City
wadahadalladii saddex geesoodkaha ee horaantii bishan lagu qabtay halkaasi waa kii laysku afgaran waayey ee laguna kala tegay waa kay dowlad deegaanka Soomaalida maamulka ay sheegeen in ay ka qadayn doonaan caasimadda Samaara haddii ay joojin waayaan dulmiga ay shacabka ku hayaan canfartu dagaaladii maxay u dambeeyay halkeesa ku istaageen Cabdullaahi wakiil wada hadlay ee wada hadalkii la isku afgaran waayay marka ciidamadeenan dowlad deegaanka Soomaalida ayagoo ka fiirsanayo ficilada iyo dhibka ka imaan doono haddii ay dad shacab gumaadaan waxyaabaha dhibka ku keenayo dadka maatida ee meeshaasi ku sugan dowlad deegaanka iyo ciidamada dowlad deegaankana inta badan ma iska laayaan dad shacab warayda marka ciidamadan haddii aynan ciidamada canfarta aynan sarac imaanaynin oo si fiican loo dagaalaynin Cabdullaahi deegaan iska cidla oo dad shacab ay joogan dagaal laguma qaadi karo marka wada hadalladii Cabdullaahi way dhicisoobeen wax wada hadal oo dambe dib u furmayna ma jirin ciidamadii dowlad deegaankana madaxweynaha ayaa amray inay ku joogaan xeryahooda ee ku yaalo magaalada Garbaciis iyo agaarkeeda shacabka gobolka galbeedka City aad ay u cabanayaan oo waxay cambaaraynayaan maalin walba dowlad deegaanku ay leeyihiin way ka gaabiyeen in ay nagarab istaagaan oo ay si fiican nooga dhiciyaan cadawan caadaysta dhiiga dadka meesha ku sugan marka Cabdullaahi wax wada hadal oo dib u furmayna ma laha balse inay furmaan waa laga yaabaa aad iyo aad baad u maasantahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo inoo falanqeynaya xaaladaha dalka Itoobiya daawadayaal wixii ka soo kordha dagaaladaasi iyo xaaladaha dalka Itoobiyana waxaan idinku soo gudbin doonaa warkeena warka xiga waxaana idinka tagaynaa guul iyo gobonimo